ورا معلول عفوا وايه اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda oo saaka ilaa iyo hadda ka qayb qaadanaysay howlgalka xasilinta amniga caasimadda oo ciidankii shaqada qaran hayay ee baaritaanka hayay la howlgaraayay ee waajibkooda gudanayay way mahadsan yihiin inta kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada isku dhafka ah ee militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda ee la yiraahdo ciidanka xasilinta caasimadda la yiraahdo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waajibka ay qaateen iyo baaritaanka ay magaalada ka wadaan iyo amniga ay soo celiyeen maanta oo Soonya 18 yahay shaqada ay ka qabteen magaalada waxaan leeyahay ciidamada qaranku waa mahadsan yihiin saaka baan la howlgalnay ciidanka guryahay baarayeen waajibkooda qaran ay gudanayeen waxaan aad ugu faraxsanahay in magaalada aadan arkaynin tuuta aan ahayn tuutaha amniga xasilinta caasimadda loogu talagalay aan ahayn oo midkan xiranahay iyo midka booliisku xiran yahay iyo midka militarigu xiran yahay waxa magaalada guud ahaan laga mamnuucay wax ka badan 4 askari inuu mas'uulku wadan karo waa laga mamnuucay waxa magaalada laga saaray dhammaan qoryihii waaweynaa ee AKF yani dabajeexa la yiraahdo ama BKM-ka ayaa guud ahaan magaalada laga saaray waxa guud ahaan magaalada laga mamnuucay abdibilaha tuutaysan ee aan ahayn kuwa ka qayb ah xasilinta amniga ka qayb ah ayaa magaalada laga saaray guud ahaan waxa laga mamnuucay magaalada askari ama askari u eke ee tuuta qaran ku labisan ayaa laga saaray magaalada intaas oo dhan waa guul waxaan ku faraxsanahay maanta wixii la soo bandhigay inay ahaayeen baangado iyo midiyo iyo tooreeyo ay ahaayeen oo aan qoryo la soo bandhigaynin waxay ka dhigan tahay qoryihii magaalada in laga dhameeyay oo wax sharci darro ah ee qorya aysan magaalada aalin oo dhammaantood askarigiina oo aaday difaaca loogu talagalay oo aaday intii kalena ay ka qayb yihiin amniga ama ciidanka xasilinta amniga caasimadda taliyaashan rabaa inaan u mahad celiyo booliiska nabad sugidda iyo militariga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga oo waajibkan qaran qaatay kuna adkaystay inay magaaladan xasiliyaan waxaan hore u dhicin 22 sano ay magaalada ka dhacdo waan qaadanay go'aanka meediyaha dhan ee Soomaalidu leedahay inay maantay si volunteer uga qayb qaataan ciidanka la howlgalaan ayagana waxaan leeyahay walaalayaal maasantiin magaaladu waa amni Ramadaan Kariim ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba ha ku naaloodo amniga magaalada ka jira ciidanka amniga hal la taageero cid ay mucaarad ku yihiin ama cid ay duulaan ku yihiin ama cid ay hantida wax u geysanayaan ma jirto afurka hal la siiyo guryaha lagu yimaado markay shaqada amnihayaan hal la shaqeeyo oo hal laga qayb qaato guud ahaan wad mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidanka xasilinta howlgalkii maanta ay ka sameeyeen